يوسف قراد عمر وزير كارمها دبد الصومالية وكسوغا دلك السعودية كان مدى وفدق مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو oo dalkaasi booqasho rasmi ah ku gaaray waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxda wadanka Sacuudiga iyo madaxweyne Farmaajo. Yusuf Garaad waxa uu sheegay in arrimo dhowr ah oo ay ugu weynaayeen xiriirka labada dal laga wada hadlay isla markaana lagu guuleystay qodobadii laga wada hadlay dhamaantood in la isku afgarto. waxa wada hadal ku yeeshay madaxweynaha iyo boqorka iyadoo goobjoogna aan ka ahayn wafdiga iyo dhinaca kalena Sacuudiga mas'uuliyiin ka tirsan oo sare galabta عاوفيتك وحا مقالدن جدة قصرية وفد دقية هاي كوسو بوغدي ويمد مدحوينها أميركا لها نحالكا بغرطوية نحالكاس أيا وضا هذا اللغوية شيء لبدا دينع وحا كالو جري وزير كارمها ديبدا وساولو نوصو بوغدي هالكان وأن وضا هذا اللي يالناي صندوق هورمارينتا سعودية ayaan isagana mas'uuliin ka socotay wada hadal yeelanay marka runtii waxay ahayd wada hadaladii laga wada hadlay oo laha dhinacyada difaaca in la iska kaashado la dagaalanka argagixisada dhinacyada ganacsiga iyo horumarintiisa dhinaca horumarinta dalka iyo kobcinta dhaqaalaha dhinacyo badan laha meelihii la isku soo qaaday oo dhan runtii waxay ahaayeen kuwa aad iyo aad la isku afgartay xiriirkeena oo aad u faac weyn oo qoto dheerna uu noqday xiriir kasii xoogan sidii hore ballamo kalena la ballamay natiijada socdaalkana aan filayno haddii ay yiraahdo in dhawaan laga arki doono laga dareemi doono xiriirka labada dal iyo gudaha Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaa muddo 2 maalin ka hor waxa uu booqasho rasmi ah ku gaaray wadanka Sacuudiga waana safarkiisa saddexaad oo ku tago wadankaasi. Axmed Saciid Axmed, telefishinka Cable, magaalada Muqdisho.